العقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر ندي نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري. caqligu waa nimco iyo naxariis uu allaah siiyey aadamaha, waa hadiyad uu u hibeeyey dadka oo dhan, waa deeq iyo darajo uu siiyey muslim iyo gaalba, waa fadli iyo faa'iido ay dheer yihiin in badan oo ka mid ah noolaha uu allaah abuuray. waxaa lagu bartaa aqoonta, kadibna jahliga ayaa looga baxaa. waxaa lagu gartaa wanaagga, kadibna waddadiisa lagu raacaa. waxaa lagu ogaadaa xumaanta, kadibna waddadeeda looga fogaadaa. waxaa lagu raadiyaa xaqa, kadibna hanuunka lagu helaa. waa aaladda garashada iyo garaadka bani'aadamka, waa halka hal abuurka iyo hindisaha ay dadku ka allifaan. waa mushiinka kala shaandheeya macluumaadka maskaxda soo gala, waxa uu kala hagaa macluumaadka maskaxdu ay kaydiso, midka ay tuurayso iyo midka carabka u soo gudbaya. caqligu waa nimco rabbaani ah oo uu allaah inagu mannaystay. caqliga isaga oo nimcadaas iyo naxariistaas ah ayay dad badani ku kadsoomeen kadib markii ay fahmi waayeen sababaha loogu hibeeyey caqliga. waxa ay garan kari waayeen ama ay ismaandhaafsiiyeen sababta ugu weyn ee caqliga loogu hibeeyey inay tahay si ay u gartaan sharciga iyo shuruucda uu soo dejiyey allihii abuuray iyaga iyo koonka ay ku dhex nool yihiin. tanina waxay keentay aqoon-yahano fara badan oo muslimiin iyo gaalaba isugu jira inay aqoontoodii ay aafo ku noqotay iyaga oo kala saari waayey waxa uu caqligu keensan karayo iyo waxa uusan caqligu keensan karin. waqtigii xadaaradda iyo cilmiga reer galbeedku uu soo gaaray ayaa waxay aqoon-yahanadoodii la yimaadeen aragtida la yidhaahdo humanism. inkastoo sababaha ku kallifay aragtida humanismaha ay kala duwanayd ayaa haddana waxay ka sinnaayeen inay aragtidani hirgasho oo yurub oo dhan laga aqbalo. humanism waa aragtida ah in caqliga loo kaashado dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha aadamaha. humanism waxay ahayd aragti sheegaysa in caqligu uu ka sarreeyo wax walba. aragtida humanism waxay ahayd aragti ku doodaysa wax walba oo caqliga ka hor yimaadahi in la iska tuuro. aqoon-yahanadii sida aadka ah u soo saaray aragtidan waxaa ka mid ahaa Immanuel Kant oo ahaa baadari Jarmal ah. Kant waxa uu cuntami weyday diinta uu haystay, waxa uu u bedelay khudbadihiisii diiniga ahaa inuu cuskado caqliga oo uusan soo deliishan Baybalka maadaama Baybalka la taxriifiyey oo wax micno leh uusan samaynayn haddii la soo deliishado. ninkaas isaga ah ayaa waxa uu aaminsanaa in madax bannaanida bani'aadamku lagu gaaro caqliga iyadoo uusan u baahnayn wax taakulo ah oo rabbaani ah. waxaa laga yaabaa dad badani inay la yaabaan fikradda Immanuel Kant uu aaminsanaa, balse waxaa xaqiiqo ah in maanta fikirkiisii dad badan oo muslimiin sheeganaya ay ku saamoobeen. waxa ayna fahmi waayeen in fikradda Immanuel Kant caqiidada qofka muslimka ah siyaabo kala duwan dhaawacyo culus ugu geysanayso. dadka muslimiinta ah waxay aaminsan yihiin qur-aanka in loo soo dejiyey in horumar iyo hagaagsanaan uu u keeno cid walba oo qaadata manhajna ka dhigata. dadkii muslimiinta ahaa ee caalamka ku soo kordhiyey horumarka waxay ahaayeen dad diinta ka dhisan oo culimo ahi. Immanuel Kant waxa uu dhaliilay Baybalka isaga oo aaminsanaa Baybalka inuusan la jaan qaadi karin nolosha iyo ilbaxnimada ay reer Yurub markaasi higsanayeen. dhaliishana xaq ayuu u lahaa maadaama Baybalka la bedelay gacan bani'aadanna ay dhinac walbaahi ka walaaqday, halka qur-aanka kariimka aan xaraf laga bedelin, lana ilaashay lana ilaalin doono ilaa inta laga gaarayo maalinta qiyaame. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. waxaynu aaminsannahay bani'aadamka oo dhan inuu allaah u baahan yahay, sababta oo ah isaga ayaa abuuray, isaga ayaana ina irsaaqa, halka Immanuel Kant uu qabo inuusan qofku allaah u baahnayn haddii caqligiisa uu kaashado. sidoo kale dadka sida weyn iyagana u soo caansaaray aragtida caqliga waxaa ka mid ah René Descartes oo ahaa faylasuuf Faransiis ah.
weedhihiisii caanka ahaa ee ilaa iyo hadda falsafadda reer galbeedku ay u isticmaalaan waxaa ka mid a I think therefore I am or I exist oo micnaheedu yahay qofku waxa uu jiraa marka uu fekero. aragtidani waxa uu keenay Descartes kadib markii uu shaki geliyey oo uu diiday wax walba oo adduunka saarnaa ilaa isagii uu is-shaki geliyey kadibna uu yidhi maadaama aan ahay ninka fakaraya anigu waan jiraa. waxa uu ku dooday caqligu inuu yahay sababta uu u fekeray oo jiritaankiisa ka dhigaysa wax jira. sidaa darteed waxa uu aaminsanaa shakigu inuu yahay tallaabada koowaad ee aqoonta. muslimiin fara badan oo qaarkood Soomaali yihiin ayaa maanta ku kadsoomay fakarka ah shakigu inuu yahay darajada koowaad ee cilmiga. Allah waxa uu ku tilmaamay dadka mu'miniinta ah inay yihiin kuwa isaga rumeeyey iyaga oo aanan arkin. sidoo kale waxa ay rumeeyeen jannada, naarta, malaa'igta iyaga oo dhammaantood aysan arkin. waxa kaloo ay rumeeyeen kutubtii horey loo soo dejiyey, ambiyadii horey loo soo diray iyo kitaabka qur'aanka ah ee lagu soo dejiyey nebi moxamed sallallahu calayhi wasalam. René Descartes waxa uu shaki geliyey allihii abuuray kownka aynu ku dhex noolnahay. waxa kale oo uu shaki geliyey wax walba oo kor saaran adduunka isaga oo markaasi uga dan lahaa inuu yidhaahdo fakarkayga iyo caqligayga ayaan ku ogaaday jiritaanka waxa jira iyo jiritaan la'aanta waxa aan jirin. ninkaasi doodiisu waxay ahayd mid ka dhigaysa qofka bani aadamka ah inuusan cidna u baahnayn inta caqligiisa uu isticmaalayo isaguna markaasi uu isku filan yahay. waa waxaan dadnimo loo ogeyn meeqna loo darine dunyaday ka liitan siduu daayinkan yidhi. dadkii iyaguna soo shaacbixiyey aragtida caqliga waxaa ka mid ahaa John Locke oo u dhashay dalka Ingiriiska. wuxuu aasaasay iskuulka la yiraahdo iskuulka caqliga. waxa uu ahaa dadkii ugu horreeyey ee dhaqdhaqaaqii cilmi-doonka reer Yurub ka qayb qaatay. waxa uu hindisay aragtiyo badan oo dowladaha reer galbeedku maanta ku dhaqmaan. waa ninkii keenay aragtida odhanaysa fasludiini cani dawlah, diinta iyo dowladda waa in la kala saaraa. waa ninkii keenay aragtida dhahaysa qofku waxa uu la dhashaa 3 xuquuq oo aasaasi ah: nolosha, xorriyadda iyo farxadda. aragtidani waa halka ay ka soo unkatay nidaamka dimuqraadiyadda ee dowladaha reer galbeedku ay ku dhaqmaan maanta. dowladihii ay aragtidan cajabisay waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo iyadu ku darsatay dastuurkeeda. in badan dowladaha maanta ka jira wadamada muslimiinta ayaa waxay aqbaleen nidaamka dimuqraadiyadda ee ku salaysan calmaaniyadda, in diinta laga daayo dowladda, dowladdana laga daayo diinta. nidaamkani waxa uu dhigayaa in qofku diinta uu rabo uu haysan karayo, waxa uu rabana uu aaminsanaan karayo, xaqna uu u leeyahay, xorriyadna uu u haysto. nidaamkani waxa uu dhigayaa sharciga dalka u yaala inuusan diinta xigsan karin, diintuna ay ka hoosayso qaanuunka dalka u yaala. dad badan oo muslimiin sheegta oo weliba aqoon-yahano isku haysta ayaa maanta kala saari waayey farqiga u dhexeeya islaamka iyo dimuqraadiyadda. dimuqraadiyaddu waa nidaam maamul oo la yaqaano cidda ay ka soo faracantay iyo waxa ay u ololayso. shareecada islaamkana waa nidaam maamul oo dhammaystiran looguna talagalay dadka muslimiinta ah inay isku maamulaan. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. dadkii sidoo kale aragtida caqliga ah kor u qaaday waxaa ka mid ahaa David Hume oo ahaa Scottish. waxa uu ahaa nin diinta iyo fikradaha diinta ku salaysan aad u neceb oo aad uga soo horjeeda. waxa uu aaminsanaa in la shakiyo kadibna su'aalo la isweydiiyo dabadeedna sidaasi cilmiga lagu helayo. waxa uu ahaa qoraa mar walba xoogga saara shakiga iyo ilbaxnimada. David waxa uu saameyn ku yeeshay dad badan oo ay ka mid yihiin Immanuel Kant iyo Charles Darwin. waxa uu aasaasay iskuulka lagu magacaabo iskuulka caqliga iyo shakiga.
inkastoo fikirka david home oo dad badan oo muslimiin sheegta horay u qaateen ayaa waxaa muuqda maanta in ay si aayar ah ugu soo gudbayso ummadda soomaaliyeed ee fikradahaasi nadiifta ka ahayd dad badan oo soomaali sheegta ayaa maanta markii aad u sheegtid allah ayaa waxa uu yidhi sida tan ama rasuulka ayaa yidhi sida tan in ay iscuncunayaan iyaga oo markaasi raadinaya daliil caqli ah waxa ay mar walbaahi jecel yihiin caqligooda mala awaalkooda iyo aragtidooda inay ka hormariyaan aayadda qur'aanka ah ama xadiidka saxiixa ah sidoo kale waxa ay jecel yihiin inay ku fasiraan aayadda qur'aanka ah ama xadiidka sida iyagu uu malahoodu yahay iyagoo aan marna tixraac ka keenayn fahamkii saxaabada taabiciinta iyo salafkii ummadda waxa ay ku tilmaamaan fahamkii salafka inuu ahaa aragti diineed qof walbana uu aragti diineed yeelan karo sidaana iyagu ay ku fasiraan diinta aragtidooda halkaas waxaa lagu quursaday xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ahaa qabsada sunnadayda iyo sunnada khulafada raashidiinta للقلب في أحبابه حلو الفصول ولقد تبدى حب قلبي للبشر حب الشريعة ليس يعروه الذبول قد طاب حب يجتنى منه الثمر dadka aragtida caqliga aaminsan waxay u haystaan diintu inay cadow ku tahay horumarka iyo hagaajinta nolosha bani aadamka waxay aaminsan yihiin caqliga oo la kaashadaahi inuu yahay waddada keliya ee libta lagu gaarayo waxa ay ka fogaadaan hadallada diinta iyo aragtida diimeed ku salaysan iyaga oo mar walbaahi isticmaala hadallada caqliga iyo fakarka ku salaysan waxay dhaliilaan qofkii shuhadada jannada iyo naarta alleh ka sheekeeya iyaga oo doodooda ku saleeya jannada iyo naarta inaysan cidina gacantooda ku jirin weedhaasi oo ah weedh sax ah balse iyagu ay uga dan leeyihiin jannada iyo naarta inaan cidna lagu cabsiin sida aynu ognahay caqligu waa nimco uu allaah ku manaystay aadamaha oo dhan si ay u ogaadaan xaqa iyo hanuunka balse nasiib darro dad badan nimcadaas fadliga iyo faa'iidada loo siiyey waxay u isticmaaleen waddo khaldan ama si khaldan maalinta qiyaamee dadka alla diiday markii ay naarta galaan cabashooyinka iyo cudurdaarada ugu waaweyn ee ay ku andacoonayaan waxaa ka mid a inaysan caqli lahaan jirin dadkaas naarta marka ay gelayaan waxay leeyihiin وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير waxay leeyihiin haddii aan ahaan lahayn kuwo wax maqla ama caqli leh maanaan ahaaneen naarta saciiro dadkeeda cudurdaarkaas waxay dadka alla diiday ku doodayaan iyaga oo caqli iyo cilmiba lahaan jiray markii ay adduunka joogeen caqli inay lahaayeen waxaa u daliil ah siday u horumariyeen oo ay u hagaajiyeen nolosha adduunyadooda caqli inay lahaayeen waxaa u daliil ah in caqligooda uu u keenay inay saro dhaadheer oo dhaldhalaalayahi ay samaystaan caqli inay lahaayeen waxaa u caddayn ah sida ay u samaysteen dariiqyada hawada ee diyaaradaha iyo kuwa dhulka hoostiisa ee tareennada annaga oo og caqligaasi inay lahaayeen ayuu allah inoo sheegay in la cadaabayo sababtoo ah caqligooda uma aysan isticmaalin sidii uu allah rabay caqligooda waxay ka dhigeen wax aan dheef u keenayn aakhiradooda sidaa darteed caqligoodu waxa uu ka mid noqday cuquusha waddadii saxda ahayd ka marin habowday caqligu waa inuu ka shidaal qaataa kitaabka allah iyo sunnada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed ayay culimmadu yidhaahdaan caqliga saliimka ah iyo naqliga ama aayadda iyo xadiidka iskama hor yimaadaan sababtoo ah allaha caqliga sameeyey ayaa naqligana soo dejiyey kana dhigay naqliga mid ku fiican meel walba iyo waqti walba وسيرجع الأقصى لتنعم بالسجود وستسمع التكبير
وستسمع التكبير وستسمع التكبير يصدح في الوجود.